kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada warka Somali Channel oo aan idila socodsiiyay anigoo ah Mariin Maxamuud Barre qodobada aan idinku hayana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay ku howlan tahay qorshe lagu xaqiijinayo ammaanka goobaha muhiimka ah ee Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo xukunno kala duwan ku riday rag lagu xiriiriyay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab مسؤولين كترسل معمول كجبلان يسراكيل كسعودي ciidamada AMISOM oo kormeer shaqo ku tagay deegaanka Kudha ee gobolka Jubbada Hoose halkaasi oo duruufo nololeed ay ka jiraan wasiirka maaliyadda Somaliland waxa uu sheegay in la dardargelin doono ololaha canshuur ururineed ee Somaliland magaalada Hargeysa waxa laga furay xarun weyn oo ganacsi oo casri ah taasi oo ay hirgelisay shirkadda Dahabshiil Group qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku hayaa faahfaahinta warka hase ahaatee marka ugu horeyso ku soo dhawaada qadar adeega bulshada